السلام عليكم ومالنكي صدحات iyo muuqaalkii saddexaad waxba gali mayno hordhac balaaye ah laakiin intaynaan sheekada u gudagelin fadlan muuqaalka like saar haddii aadan weli subscribe-na soo dheh haddii aad noo camiri kartidna noo camir dad badan waxaa jira i weydiiyey muuqaaladaada ma soo qaadan karnaa tiktok ma dhigi karnaa magacaaga ma ku furan karaa tiktok waxaa rabtid walaaqo aan ku fasaxay waxaa jiray laba nin oo dhalinyaro ahaa aynu uga baxno midna muniir kan kalena mucaad muniir iyo mucaad waxay ahaayeen laba wiil oo yaraantoodii xitaa isla soo koray markaa ku dhahayo ma aha inay hal guri ku wada koreen yacni iskuulka isla fadhiisan jireen dugsiga way soo wada dhigteen way soo faataa bakhleeyeen waxyaabo badan markaa yaraantoodii ilaa hadday saaxiiba yihiin oo ay dhowr iyo 20 jiraan dadkuna way isku yaqaaneen yaraantoodii ilaa iyo hadda xiriir ka dhexeeya inay laba qof aad iyo aad isugu fiican yihiin xabadii rootiga way kala goostaan haddana aynu ka wada hadalno wax ku saabsan familadooda mucaad wuxuu ka soo jeedaa famil qadeeya sidii soomaalida ayaantaan dhahaan reerka xoogaa ladan wuu qadeeyaa baa la dhahaa reer qadeeyuu ka soo jeedaa aabihii waa ganacsade walaalihii qaar ka mid a waa ganacsato qaar kale iska faataa bakhlayaan laftarkoodu isagu uu ku jiro halka muniir laakiin waxaa dhalay oday yar oo taraafikada u shaqeeya wax badan ma qaato iska da'weeye hooyadii kursiga kama kacdo gabar yaroo walaashiisa jirto iska miskiin oo ka yar asaga wax badan ka yar 17 meelaha jirta guri yaroo iska buulbuulay degan yihiin saddexda waqti maalintay wax dhan waa u fadhidaa intooda badan dhexdooda isma arkaan tayar saaxiibadeed bay isaga maqan tahay isagu saaxiibkiisu la boodbooda odaygu waa maqan yahay islaanta waa gooni xaafad dhan oo kala daadsan iminkana aynu baranno dabeecadaha labada nin mucaad yarka reerkiisu qadeeyaan maadaama ay reerkiisu qadeeyaan waa nin kibir badan shaytaana dibindaabiye badan ummadda dhibay tunta wax weji aan lahayn intaasoo jeer baa laga soo dacwoodaa maadaama aabihii nin weyn oo la yaqaana uu yahayna isagaa kala maareeya urmaanow isteji laga kari waa halka muniir nin miskiin uu yahay caadi maaha miskiin dhulka haddaad dharbaxa kaga jirta ku dhahaya walaal ta kalena igu dar maxaa labadooda saaxiib ka dhigay marka waxaa saaxiib ka dhigay wax kale maaha xilligii ay yaryaraayeen ee ay dhigan jireen dugsiga hoose markaas xitaa muniir wuxuu ahaa miskiin mucaadna wuxuu ahaa shaydaan siday saaxiibo ku noqdeen marka waxaa weeye in uu jiray mid ay mucaad isnacbaayeen oo isna reer qadeeya kasoo jeeda oo kibir badan tiim buu lahaa marka oo mar walbaba kan ugu foosha xun ee ugu lacagta badan wuxuu samaystaa tiim uu ku dhibaateeya inta kale oo ka kaaban dhowr qof iyo dhowr gabdhood yaryar oo u qeylqeyliya dhaha dhinaca kale xitaa mucaad wuxuu lahaa asna tiim xayil oo munaafiq kala dee maalmaha ka mida mucaad maahana kii kale ee asna shaydaanka ahaa ee tiimka lahaa bay waxay bilaabeen inay fawdeeyaan muniir oo markaa ku cusbaa meesha mucaad iyo tiimkiisiina waxay difaaceen muniir iyagoon u dan lahayn muniir ee u danle kuway ka difaacayaan sidaas darteed muniir wuxuu kusoo biiray kooxda mucaad weli saaxiiba maaha saaxiibtinimadooda waxay bilaabatay maalintii uu mucaad ogaaday inuu muniir waxbarashada ku fiican yahay bilaabayna inuu u dhiibo asaymentiyada laga rabo si uga soo shaqeeyo dugsiyi hoose ma asaymenti baa la dhahaa maya yacni hoob mooga yarkee loo diro wuu uga soo shaqayn jira imtixaanka wuu u qishi jiray stiil waxaasi maaha waxay laba qof isugu soo dhowaadaan weliba nin kibir badan oo reer lacaggal kasoo